panel can waxa the role of educational institutions in promoting entrepreneurship and innovation. Kaalinta ay goobaha waxbarashadu ku leeyihiin horumarinta hal-abuurka ganacsi iyo hal-abuurka fikradeed. Waxay noo soo jeedin doonaa oo panelka waxay u yihiin ilaahay kuma samantidee madaxa oo panelka soo jeedinaya 3 professor waxa kow ka ah Dr. Abdisalaam Maxamed Ciise Salwe or Vice President, Academic Vice President of Jaamacadda East Africa University. Waxaan noo labeeyaa Maxamuud Sheekh Maxamed oo asna Vice President Jaamacadda Boosaaso University ah. Waxaan noo sadeexeeyaa Maxamed Cabdulqaadir oo asaguna wuxuu Vice President ka yahay Jaamacadda RSU University. Lecturer and researcher na wuxuu ka yahay isla Jaamacadda oo Economic and Management. waxaan rabaa inaan su'aalo qaybiyo su'aalo qaybna general bay noqonayaan oo laga wada jawaabaya comments suggestions ka lagu darsanaya qaybna special bay noqonayaan haddii aan Dr. Abdisalaam ku bilaabo saad la socotaan waddankeenan waxaan nahay young country 70% in ka badan waxa weeye dhalinyaro bulshada Soomaaliyeed saa darteed dhalinyaradaas waxay u baahan yihiin hal-abuur ganacsi inay samaystaan jaamacadaha marka laga baxanayo shaqo abuurtaan maadaama fursadka shaqadu ay yaryihiin si marka loo siyaadiyo hal-abuurkii ganacsiga iyo hal-abuurkii kalo innovationka ahaa kaalin cankeeya ay jaamacadaha waddanku ka qaataan arrintaas inagu sidaadaba waxaynu haynaa fursado badan gaar ahaan waliba adeegsiga la adeegsanayo teknolojiyada cusub saaka ka sheekeynay isbedelada dhacay 200 sano ugu dambeysay marka ay soo socotay 300 sano ilaa mataqaanaa hore oo bulshooyinka markay ka bilowno soo socod bulshooyinka kuwa labaad saacad waana hadda joogna afraad kontonkii 60 sano ugu dambeysay intii xawli aad u xoog badan oo ka xoog badan oo shajeejibaan ama toojejibaan waxyaabay dhacayba soo baxay marka haddii aan la helin waxa dhiirigeliya dhalinyarada wax soo saarkooda way koraysaa maala kelmadaan anigu qaano lahaa aanaan xuseen waxa weye dadka maalqabeenka leeyahay ma aha in qofku leeyahay boqolaal milyan master maaha maala kasoo qaad qof baa 10 haysta qof baa 20 leh qof konton ku heli kara qofna 2 qof ku heli kara markii la isu keeno waa $1 million way ku dhawaad milyankaas waxbuu abuuri kara hadda maqal dhalinyaro bilowda jirta sida dhawey runtii dhawey waxa weyn oo badan buufsatay oo u sahlan oo waa maxay daqiiqad baad ku helaysaa taksida boot waana ka jaban yahay taasina kale marka waxaan qabaa marka dhalinyarada waxay u baahan tahay in la dhiirigeliyo maalqabeennada inta doon haysto fadlan in lagu talagalo in la siiyo waxaa kaloo muhiima iyadana jaamacadu anaga roolka hadday tahay waa kelmadii haddaayaan isticmaalay ahayd wixii hore inaan lagu noqdo matal ka soo qaada kelmadaas raalli hadiraan su-aasheeda aan ku fogaaday matal baan raalli ku daro oo aan marwal isticmaalay intaana hadda fadhida halkaan haddaan uu weydiiyo qofkii aan haysan mobile qof aan mobile haysan ma jiro su-aasha labaad markaan qofka ugu horreeya aan weydiiyo idhaahdo goormaad ugu horreysay adeer mobile aad mataqaana yeelato ama mataqaana lagu siiyo ama adeer ama abti ama yeey waxa uu oranayaa hadda markaan weydiiyo odayga halka ka muuqdo wuxuu oranayaa walahi mobile aan mataqaana la siiyo ama la ii gado waxaan ahaa 12 jir ama 14 jir anigoo ah haye waxaa ii galay adeer baa ii galay ama abti baa ii galay ama aaba ii galay su-aasha saddexaad markaan weydiiyo hadda aan weydiiyo idhaahdo mobilekii berigii lagu wado ma haysata bay guri maxaa dhacay wuxuu waa wadow mobile sameeyay 4 sano suuq waxaa jooga baabuur konton 60 sano la sameeyay weli suuqa maray oo tikadii alaabta kasoo qaadan jira mobileka waxaa laga hadlayaa 5 sano 3 sano 5 sano marka maxaan ka wada taas ayaan kusoo koobo isbedel socda su-aasha marka aan ku weydiiyo maxaad oranaysaa ma inama isticmaal kara waay sababta waxa weeye WhatsApp Twitter ma soconayo waagii systemkii jiray system ka cusub baa laga waxaan ka wadaa waxa weeye waxaan la casriyeeyo cusub haddaan la taageerin waxa uu dib u dhac bacdaaya maskaxda banjka bay noqonaysaa dhiirigelintii bay baaqanaysaa waxaan ku dari lahaa jaamacaduhu qaabka ay u dhiirigeliyaan hal-abuurka
waxaa qayb ka ah dibaacsida la sameeyo iyo researchada la sameeyo oo ardada lagu dhiirigeliyo culture research koorsooyinka baxa macallimiinta inay ardada ay ku dhiirigeliyaan ardada inay wax baaraan hal-abuur la yimaadaan wax badan ay soo celiyaan ciddii fikrad keenta hal-abuur keenta la abaalmariyo foorumyo la barto laisugu imaanayo lagu soo bandhigayo ardada iyo hal-abuurkooda lagu soo bandhigayo yani waxyaabahaas waxay dhiirigelinayaan in hal-abuurkii iyo innovationkii iyo kor u kaco kor loo qaado waana waxaan isleeyahay waddooyinka ugu wanaagsan lagu dhiirigeliyo ama meelaha ugu fiican ay kasoo baxaan weye. Ka jaamacad boosaas ahaan haddaan usoo laabto maadada entrepreneurshipka way ku jirtaa kulliyad walba oo macnaha ardayga kulliyadu barto way ku jirtaa waxay ku dhiirigelinaysaa ardayga inuu fahmo qaabkii waxaan uu bartay uu u dhaqangelin karo. Marka waxaan isdhihi karaa arday badan oo skillski leh oo aqoonti leh baa soo baxaysa. Midda labaad qaybta Garowe baa waxaan ka hirgelinay entrepreneurship center oo maaragtay noo xoojinaysay jaamacadda Mount Kenya University oo Kenya laga leeyahay tababar ay kusoo siisay shaqaaleey ka shaqeynayay iyo dhalinyartii maaragtay barnaamijkaas sii waday hay-ado badan ay support garaynayaan. Marka waan leenahay lababkii waxaa keli oo meesha ka maqan keli waxaa waaye wixii soo saaro suuqa lagu iibin lahay iyo maaragtay ganacsatada dhiirigelin laheyd baan weli la helin. Marka waxaan soo xasuustaa dowladdeena waxay dhiirigelisaa muhiim ah ardayda jaamacadda ka mid ah hadda oo master soo diyaarinaya iyagoo group ah waxay hagaajiyeen voting system. Voting systemka maanta wuxuu caawin lahay in doorasho ay ka dhici karto maaragtay one man one vote uu ka dhici karo gobol of Soomaaliya buu maaragtay caawin karaa haddii la helo safarada systemyadeeda haddii la helo aad buu caawin karaa. Marka haddii barnaamijkii aan hagaajinay wuxuu u baahday barnaamijyo badan oo maaragtay meel walba aad joogto oo inaad isticmaali karto goolis hadday tahay goolis waa inay ku ogolaato inaad safarkeeda isticmaali karto messagekina aad ka diri karto qofku markuu vote gareeyo ardaydan ku tijaabinay qofku markuu vote gareeyo waxay u soo celinay message waa vote gareysay halkana waxay tusi qof baa vote gareeyay inuu kor usii socdo qofkii loo vote gareynayo kor usii socdo. Marka insha Allah barnaamijkaas weli maanan publish gareynin weli maaragtay waxaa la sameynayaa barnaamij yar baa lagu dardaraya sanadkan gudihiisii baa waxaan ku tijaabinaynaa doorashadan dhici doonto adiga maaragtay after graduation 2020 baan qalinjibinta qabsan doona insha Allah. Graduation kadib baan votingka soo bandhigi doona markaasna media dhammaanteed iyagana waa u yeeri doona insha Allah. Markaas si ay u arkaan maaragtay isbedelkaas ay jaamacadda sameynayso iyo maaragtay si ay uga qayb qaadanayso maaragtay fikradaha ardayda ay soo bandhigayaan in ay noqoto mid useful ah. aad u mahadsantihiin. Waxaan ugu dambaysiinaynaa su-aasha ah sidee baan ardayda jaamacadaha dhigatay inta ay ku guda jiraan innovationkooda u siyaadin karnaa markay ka baxaana suuqa shaqo abuurka aan oga caawin karaa maxaase ina haysta oo caqabada ah oo isleeyahay ardadaas idin dhegeysanaysa iyo dadka tiimka ka dhegeysanaya social media platformskiisa lagu caawin karaa oo ardayga u noqon karaa talooyin wax ku oola oo ardaygu u qaato si uu ula joogo suuqa shaqada. Horta waxaa jirta cilad yaroo aynu leenahay baa jira jaamacadaha annaga ciladaasi intii jaamacad hore baa qaba waxaana saldhig u ah ardayga secondary school ka yimid jaamacadda lagu yimid runtii heerkiisa waxbarasho aad u hooseeya. macnaha maaha eed ah ardayga mas'uula ma aha macnaha systemka iyo nidaamka annaga puntland haddaynu nahay aynu qabno ayaa ah. macnaha waxaan ka wadaa ardayga imaanaya jaamacadda luqadihii wixii ugu hooseeyey oo ahaa saldhigga u ahaa ama luqado ha noqdeen xisaab ha noqoto maadooyinka kaloo science-ka ah sida physics-ka biology-ga chemistry-ga runta aad u hooseeya. waxaana keenaya waxa weeye dhulkoo baahsan macnaha waxaan ka hadlaynaa kulli waxa jiro kilomitir wey waa caruura jiriiban gandogob baran macnaha dhul aad balaaran baynu degan nahay
nidaamka iskuullada waxa weye waa centralized system, waa center isku xiran wey. marka dowladda puntland way ka hadashay oo raboorradii wasaaradda tacliinta ayaa qortay, waxay yidhahdeen bahsanaanta waa koow, maadooyin wixii loo baahnaa oo qalabkii loo baahnaa oo aan gaari karin, aan la wada gaarsiin karin, macallimiinta aan la wada gaarsiin karin. matal ka soo qaad macallinka caalilo jooga oo u dhigaya xisaabta u dhigaya ama luqadii dhigaya, waad garan kartaa quality ahaan ama aqoon ahaan iyo labal ahaan inuu hooseynayo. sababta ma aha inuu macallinkii hooseysa, waxaa macallinka diyaarka ah ama levelkiisu sarreeyo wuxuu ka jecel yahay inuu boosaaso ka shaqeeyo oo uu helo ilaa 7% qoran ku daro. anagu waxaanu samaynay jaamacad ahaan, waxaanu samaynay in aan ardayga basic kasoo bilowno oo manaha aanu soo ka bilowno sanadka ugu horeeya in aanu basic oo aan uga bilowno. sidoo kalena maadooyinka aanu samayno systemka aan raacno jaamacadaha waa standard system. standard systemku oo 4 sano ah, qaar baa 3 sano dhigaya, taasi comment waxaa ka sameeya ciladeeda leedahay waa 3 sano jaamacad dhigaysaa ma jirto. waxaan ka wada ma jirto waxaa weeye waddanka ingiriiska soo qaad meesha la yidhahdo systemka ingiriiska aan qaan ama ka soo qaada Australia, New Zealand 3 sano sameeya hataa India. laakiin maxaa ka horeeya? waxaa ka horeeya eelaba ingiriis oo kale 2 sano eelaba, marka 2 sano iyo 3 sano technically ingiriisku waa 5 sano. waxaan ku dari lahaa aniga in ardayda aada loogu sameeyo waxyaabaha loo yaqaano extracurricular activitieska, anshida la safiya wax loo yaqaano, oo ardaydu waxaa weeye in badan ka mid ah ay ardayda lagu ogaan karo mawaahibtooda iyo hal-abuurkooda lagu ogaan karo. tusaale ahaan kale in barnaamijyo kala duwan ardayda loo qabto, barnaamijyo isugu imaanayaan ay waxbada ka doonayaan in loo qabto. activitadaas tirada badan waxay keenaysaa innovationka iyo hal-abuurka inay aada uga qayb qaataan ayay dhiirigelinaysaa. waxaa kaloo sidoo kale lagu xoojin karaa ardayda loo sameeyo tababaro loo sameeyo. markii tababaro loo sameeyo ardayda, tababarka waxa uu yar ardayga ka helaya skill, xirfad ayuu ka helaya. ardayga skillkii waxba u bilaabo meel baa waxuu furmiyaa wixii uu sii jiidanayaa oo hore u sii wadanaya ardayda. waxaa kaloo oo jirta laftigeeda iyadana lagu xoojin karaa in ardayda loo sameeyo symposiums, ardayda qabtaan wax badan ay topic ka doodaan, meesha loo socdo, xagee bay taagay, xagee la joogaa, maxaa waxyaabaha kala duwan ee maanta ay socda ee jira maxay ku darsan karaan ayaga, rol intee laga bixiyaan karaa. waxyaabahaas oo dhan waxyaaba dhiirigelinaya ayaan isleeyahay hal-abuur dhiirigelinaya. tan labaad, maadooyinka ardayga iskuulka loo dhigayaa inuu fikra looguma taliyo. ardayga maadadii baa madaxa loo gelinayaa, wixiiyo kuuskuusan baa soo ah luqadii ma yaqaan, xisaabta haddii xisaab tahay ma yaqaan, manaha inuu rafaado oo jabo oo nafta ka dhacdo. ardayga iyo tabcaan baa soo baxay. horta ugu horeysaa waxaan qabaa annagu jaamacad haddaan taas waa isku noqon doonaa, waan dhiirigelinaynaa, dadaal baan rabnaa in la socodsiiyo, la xoojiyo oo ardayga basic loo bilaabo. caqabadaha haysta waxaan isdhihi karaa oo ugu waaweyn oo ugu muhiimsan waxay ka imaanaysaa kuwa waxyaabaha dabiiciga ah ee caadiga ah ee nolol noolahay. waxaa laga yaabaa in mashaakisha dhaqaalaha iska jira ee qayb ka noqoto criminal factors oo ardayga waxyaaba u baahanaya hal-abuurkiisa ama innovationku sameynayo, waxyaaba u baahan yahay agab u baahan yahay inuusa ardaygu ay ku adag tahay. waayo maxaa yeelay waxa iska jira waan ka warqabnaa waxa iska jira low family iska jira, dakhligii waa iska hooseeya iska yaryahay, wax badan agab badan qofku u baahdo ardayga usan helin usoo bil baa dhici karta. in haddii meelo badan uu aadi lahaa ama safar uu geli lahaa waxaa laga yaabaa in qarashaadkii waxa weeye usan heli karin baa iska suuragal ah. waxay qaybka dhaqaalahaas qayb ka yahay isleeyahay fahamka hal-abuurka iyo bulshada si u dhiirigelinayso laftigeeda waxaa isleeyahay weli bilow baan nahay ayaa isleeyahay. bulshada in badan ka mid ah waxaa suuragal ah in afkaar badan oo haddii soo fahmi lahaa aysan la qabsan ama aysan aqoon ay u baahan waqti u baahan tahay ama bulshada inay ka fikirto ama waxa weeye ay qaabka wax la sameyn kara loo fikri karo waxa weeye ay suuragal ay tahay. waayo maxaa yeelay dadku iska jecel yihiin wixii hore ay iska jecel yihiin ama wixii traditionka iska jecel yihiin
waxa cusub inta muujin xogaa resistance muujin ay isla qofka ka hor imaado ka boqo cabsi isbedelka haddii isbedel uu dhaco qofka isleeyahay arbi mutmaada arbi waxa weeye ama la soo weydaan ama waa soo qeybay marka jaanjiyadaas qayb ay ka yihiin isleeyahay dowladda baa waxay dejisaa system of education ee dejinaysa markaan leenahay ma A level baan qaadanaa ma O level baan qaadanaa nidaam noocee baan qaadanaa waxay ku xiran tahay dowladda inay soo dejisay nidaamkiina ay ilaalisay nidaamkiina qaabku ku socon lahay ay maaragtay falkeeda ay gasho iidan ay dadka kula xisaabtanto haddii aan si u fiirino jaamacadaha iyo higher education haddii la fiiriyo yaa gadaal imaan yaa dambeeyey higher education baa dambeysay jaamacadaha horumareen jaamacadaha systemkooda dejisteen hooshay sii galeen baahidii jirtay bay maaragtay kabeen wax badan bay dad ka bedeleen waxaa maaragtay xusid mudan hore waxaa jiri jiray maaragtay waxaa jira dhibaatooyin badan baa jiri jireen waxaa ka mid ah dhalinyartii oo ku biirayso maaragtay maxaa dhihi jiray piracy ku biirayso waxaa arkaysaa dagaallo badan oo dhici jiray hadda amniga waxaa ka qayb qaatay ani karaa waxaa waay jaamacadaha dadka wax bartay aqoon baa yeesheen maaragtay heer baa la gaaray heerka labaad marka waxaa loo baahan yahay dowladda adkeen leh aniga haddii aan fikradda imaado maaragtay aniga ustaad sarwey iyo maaragtay ustaad maxamed cabdiqaadir haddaan fiirsano aan dhaana maaragtay waxaan rabnaa barnaamijka inaan fulino ma fuli karto waayo jaamacadaha kalama qabaan laakiin jaamacada ayaa ku qasbi karaa systemyada in la isticmaalo ardayga secondary ka soo baxay marqar waxaa dhici kartaa inuu heerkala roogo gaarin maxaa sababay iskuulka meel u ciyaarmada ciyaarta uu culigaa ciyaaraayo oo maanta la badboodaayo waxay qayb ay ka qaadanaysaa fikirkiisa manaa waxaa jira proverb oo dhahayo learning without play make a jack and albert haddii culig wax u barto wuxuu soo geli subaxduu soo geli 6 saac buu waa tegay maanta oo dhan galaaska kala fadhiyaa kaa marka maxaa ku sugaysaa inuu fikiro dhib bay noqonaysaa dad yar baa ka soo baxaya inay fikiraan marka waxaa loo baahan yahay dowladda maaragtay dowladdii inay abuurto iskuulliyada ay leedahay ida ay kontroleyso systemkii ida ay lahayd maaragtay ay marayso aad baa mahadsantiin su-aalaha bilaabanaynaa marka qofka ugu horeeya su-aashana waxay tahay maanta waxaan ka hadlaynay internetka iyo technological advanceska aynu gaarnay waxaan arkaynay arday iskuul tagay oo aqoontoodii maanta soo bandhigay sidoo kale hadda waxaan watanay macallimiintii ama raggii jaamacadii waddanka ugu fiicnaa ay halkaan la fadhiyaan runta wax badan ka faa'iidaysanay marka su-aalihii baa maskaxa ku soo waxaas dhahay maadaama ay technology advance la gaaray runtii jaamacada ma loo baahanya traditional school ma loo baahanya ardayga intuu ka soo tago ardayga reer puntland ee maanta dugsira ka soo baxaya ma u baahanya runtii inuu iskuul soo fadhiisto baan isweydiiyey suuragalba ma ka maarmi karaa oo waa ogaynay jirto online classes laakiin ma laga yaabo weli inuu ardaygu isagu wax isbaro isagoona hal iskuul aan gaar online website marin waa inay jirtaa sida waa inuu jiraa interaction macallinka iyo ardayga interactionkaas maantay waayadii hore waxaa jiri jirtay kula badan annagoo jaamacad ahaan iyo iskuul ahaan makastaleeg waa physical waa ardaygii iyo macallinka waa qasab hadda waxaa isticmaalaa system ah online macnaha ardayga uma baahno inuu joogtaas iskuulka noqdo annagoo jaamacad ahaan waxaan ku tala jirnaa qorshayaal soo socdaa jira oo qaabka hadda aan bilownay maadooyin qaarkood annagu jaamacadda ka baxaya oo aan physically ardaygii iyo macallinka ayna wada joogin waxaanu ka wadnaa meesha layado oo Malaysia health science maadooyin ah iyo macallin iyo ardaygii inay interaction sameeyaan sidoo kale Uganda Muqdisho waxaa sistemkaas loo socda way jirtaa waa la samayn karaa laakiin mushkiladda jirtaa waxaa weeye technological levelka aan joogno xoogaa cilada ku jirta ma jirto heer madal ahaan ka soo qaad ardaygii physically necessary ma aha inuu fasal fadhiisto screen weyn hor keeno madal waxaa la isticmaali karaa internet connection oo mobilkiisa ma aha computer laftiisa waa la isticmaali karaa oo soo computerka hor fadhiya uu ka daawan karaa systemkii uu ka akhrisan karaa madal waxaa jira hadda system marka la isticmaala jira Zoom baa jira
oo ahaa Moodle system yaa jira systemadaas oo kale ardaygu necessary maaha inuu hal meel joogo marka ardaygu wuxuu joogi karaa Qoryooley wuxuu joogi karaa Boosaaso wuxuu joogi karaa ardaygaas connection la soo xigay waa la samayn karaa laakiin mushkiladda in haystaa waxa weeye levelka qarash ahaan laftigeeda kula ma awoodi karaa ardayga isku soo jooga inuu baxso dhaqaale ahaan waa kow tan labaad waxa weeye ma samayn karaa ma jiri kartaa system speedkiisu sarreeyo oo ardaygaas isku soo jooga ama Qoryooley jooga inuu haleeli karo inuu waa maya ardayga necessary maaha inuu fasal yimaado waa fasalka laftigiisa ardayga oo nafta ka baxsan marka yes waa la samayn karaa waa la yeeli karaa laakiin levelka iyaga dhaqaale ahaan iyo technological ahaan hadda ma hayno oo waa qaali yes waa la hirgelin karaa oo waa suuragal weeye in ardaygii uu helo virtual class ardaygu helo oo ardayga halkaas waxa weeye kalaasyadii waxa weeye ardaygu soo fariisanayay in meesha ay ka baxdo annaga laakiin meesha hadda aan marayno iyo capacity-ga aan leenahay wax badan waa cayil weeye laakiin dunida marka laga hadlayo dalalka xitaa technological advance-ga يعني كلاسكي يأردق إنه أردق كلاس كذا كلاس بتشيله وحوي ويجتاب وبيسك yes waa la hirgelin karaa oo de waa suuragal weeye in ardaygii uu helo virtual class ardaygu uu helo oo ardayga halkaas uu waxa weeye kalaasyadii waxa weeye ardaygu soo fariisanayay ardayga markii uu jaamacadda uu dhiganayo kalaaska soo xaadirayo keliya cilmi iyo aqoon qaadan maayo ardayga wuxuu baranaya culture buu qaadanaya ardayga wuxuu qaadanayaa discipline marka wuxuu qaadanaya ardayga habka fikireed buu qaadanaya ardayga wuxuu qaadanayaa system waxbarasho oo dhamaystiran buu qaadanaya ardayga wuxuu baranayaa organize ayuu noqonayaa in galaaska xilligaa uu bilowdo xilligaa uu dhammaado in xilligaas laga rabo shaqo noocaas laga rabo in xilligaas la balamayo isu imaanayo in shaqaas la wada qabanayo in interaction jirto laakiin ashuu haddii ardayga qofkii gurigiisa uu joogo oo dhaho aniga online baan aniga galaas aadi maayo online baan ku baranaya aniga materialka haddii soo diro khalaas waxaan daawanayaa galaasya duwan oo recordingaan daawanayaa waxa weeye halkaas waxaa ka maqnaanaya aslan ba waxbarashada ama dunida marka laga hadlayo maanta waxaa lagu fikirayaa qofna aysan waxbarasho uusan waayin maadaama dee lagu fikirayo qofna aysan waxbarasho waayin markaas waxaa la imaanaya innovation iyo hal abuur ba imaanaya in wax badan la sameeyo ganacsiyo badan oo waxa weeye virtual la sameeyo kuwa online la sameeyo wax badan la abuuro laakiin in kalaaskii uu jiro oo ardayga uu soo xaadirayo uu imaanayo oona wax jiri doono weeye waayo maxaa yeelay cultureka waa meesha keliya jaamacadu ay culture ku abuuraan weeye waa kalaaskaas u doon xilliga imtixaanka galgal waan tijaabinay ardayda distance ku dhigato ardayda distance ku dhigato way ka darajo hooseeyaan ardayda kala soo jooga ardayga marka la wax weelay tan si kaligiisa wax isbara tan macallinkii oo soo akhriyo daal badan soo sameeyo xog ku soo gudbiyay buu heli group discussion baa jiraan arday presentation sameeyay fikirka dul soo jeedinay iyo waxa kale jira asigoo haddana si akhrisanay meelaha ila saddex dadaal kana haddii asaas buugi kaliya aqsaada guur isku sharxiro waxaa dhici kara inuu waxba ka faa'iido way bareexta marka aniga waxaan ku tijaabinay ku distance learning ee helo weli ma arkin baa inta sanaan joogay arday distance ku dhigana ee lamay macnaheedu waxa waaye qofka xogtii iyo dhan meelaan asay kaliya meesha fadhiya group discuss gareena meelaan mar walba ku hooseynay ardayda kale ku hooseeyay hab leega lagu baro tactic gareyn karo wixii idin keenay kala abuurkiisa ahaa oo
ama business aga dhalin karo ama isagu wixii ownershipkiisa ama somehow protect garanaya laga yaaba leeyihiin. maxaa jaamacadaha u diiday inay yeeshaan manhaj midaysan? For example, boosaaso haddaan ugu ka tago oo ka bedesho waan bariga Afrika waxaa laga yaabaa kuleediga IT inay ahayd meeshaan bedeshayna IT inay waxaa laga yaabaa markay ugu yaraato 7 koorso in la igu yeesho. taas way cilmiga halkan aan ku baranayo IT-ga ahaa iyo cilmiga bariga Afrika yaalo IT-ga maxaa kala bedelay? jaamacadaha dunida markii la fiiriyo 500 u sareysa jaamacado 20 u sareeyo waxaad ogtihiin inay luqadooda ay ku dhigtaan taasoo sababtay ardaygu inuu aqoon markuu luqadiisa ku dhiganayo iyo markuu ku dhiganayo luqad qalaad marna xiftiisa u qaadanayo ardayga soo kaalinta koowaad galay waxaa dhici karta inuusan aqoon badan u soo lahayn. laakiin markuu luqadiisa ku dhigto ardaygu hadduusan xataa wax fiican keenin markuu macaanka u sharaxayo oo luqadiisa ugu sharaxayo imtixaanka luqadiisa loo keenayo aqoon badan buu ka faa'iidayaa. hadduu imtixaanka ku hooseeyo laakiin wuu ka sareynayaa wax badan buu ka faa'iidayaa. marka waxaan dhihi lahaa ma dhici kartaa in luqadda Soomaaliga loo bedelo ujeedooyin wax manhaj ka wasan ama dalka ama bunta waa jirta sax manaa manhaj waa siman oo saxsan oo laga dhaxeeyaa jiro oo aan ahayn si mid guud oo dee maadada kastoo soo baxda jaamacadda ka baxda waxaa jira waxda maado koor muxuu ahaa jiranta shareecada maadada waxaa jira halbowlaha way ku jiraan laakiin ma wasi mushkilada jirta maxaa keenay kelmadaasi barsoonka tilmaamay system wadankii nidaam ma jirto ma aha eedu ma aha dowladda dhexe oo federaalka ah ama puntland keliya ma aha waxa way qarankii burburay qaran baa jiray siyaasada burburay runtii halka hadda aan marayno si marka loo fiirsho ilaah naga dimo ma meeshaan ka nimid iyo meeshaan joogno laakiin aad baan u fogay waxaa kaloo jira qodob kaloo jira oo muhiima oo aan kaas uga jawaabaya waxa standard system oo laga dhexeeya ma jiro maanaa puntland kama jiro sidoo kale federaalka ma jiro qodobkan isaga ah shir waxaa jira hadda dhaweyd oo July taariikh waqtiga laga martiqaaday oo jaamacadda National Somali University oo qaranka Soomaaliyeed ay dhigeen wasiirka tacliinta u yimid madax kale u timi qodob gaar ahaan xusay baa jirtay oo ahayd waa in dusha ku sarreysa qaranka Soomaaliyeed federaalka in la sameeyo standard system. standardka muxuu sameynaya wuxuu ka wada simayaa jaamacadii inay nidaam jiro nidaamkaas ka wada siman waxyaaba kala duwan waa jiri doonaan kas jaamacad kasta jaamacadda kale boqolkiiba boqol isticmaala laakiin in wax nidaam wasiirka markaa wuxuu ballan qaaday anagoo meesha ku fadhino intaas ku jira guddi aan la sameyn guddi waa la sameeyey oo wax laga sameeyey xamar bulsho laga sameeyey guddi qaadatay waxaana keenaya waa la socotaan iskuuladii jaamacadihii waa private businesskii iyo private-kii qaarkood waa hagaajinayaan dadkooda ma arkayaan waxaa la nidaaminaya nidaam ma arkayaan dadka ma arkayaan laakiin waa wax socdo. waxaa kaloo idiin sheegayaa Puntland 2018 alxamdulilah baarlamaanka Puntland wuxuu meel mariyey waxa la yidhaahdo Higher Education Commission 2010 waxay bilaabatay 2010 alxamdulilah 2018 waa lagu guuleystay sharci xaalkii waa la marsiiyey hadda waa lagu hufshaa waxaa ka mid ahay guddiga loo magacaabo ka mid ah 5 jaamacadood guddiga isku toban laga dhigay 5 jaamacadaha ugu jira muxuu ahaa Rasi iyo Boosaaso 5 jaamacadood PhD ku jira anaga ku jira annaga guddiga ka mid ahay hawsha wasa maana in Puntland waftigeeda oo la sameeyay nidaamka jaamacadaha oo dhan isku maadooyin manaha isku hab in loo sameeyo waqtaas ay ku shaqeeyaan waa isku qodobka ah alqamale ardayga Soomaha qodobka labaad oo ninkii weydiiyay waxaan u maleynayaa ya ama taas oo ka dib tikooris ya ardayga صح وكمان سوري واجد تواصل maxaa keenay runtii waxaa keenaya barinta midfo barinta waxaan ka wadaa kasoo
kasoo qaad dalka hadduu ka jira kambaniyo badan oo private ah kambaniyo dowladdu support garanayso dowladda lafteeda haddii Britain uu jiro anigu aan ogahay in Britain anigu markaan kasoo ka shaqeynayo ardayga waagaan ahaa iskuulka nafta laga bixi alxamdulillah waqtigii nabadda jirta dowladda jirta nafta laga bixi وهبينادي مرة كاتبوا كتاب صوم حرام ويا كمان أيام لا تدرون سويدي وبرجي إلا هالمدرج نفتح رجبتي صارت معايا واحد أنا مدرب معلم هو كل بريء وهذا برو جديد واحد كل برتمي أنا شغل هرب برتمي واحد كل برتمي جامعنا ما تي أرد جامعة هذا كم حياة برتمي يرجع لي يمشي وأنا صارتاس قلب كأه أرد يمسك وحول سيرين وما تدخل سيابني وحبر مركب حال حتى الناس على جامعات كثيرة وحول يصرف الحصص على دوم وحصل كوكو وكان أبير يأتي يوقع أهل وحصص هذا وملود بتشتوي ما واحد تسوي قلب على الغداء وفعله لكن الغداء الغداء باركه هاش عمله صوت النشيد ما هنا لو ضل على هاي هفت جام غدي صومالي هاي ما حصل ربيت تدوات كي على شرقي أنا أبغى مكة تكسر كذي ربيت تدوات كي قارك مو ربيت حق تبي ربيت تونسر قارك مو بور كان عين دولتي سقوط كرامة هاي وجينا هاي اللغة الصومالية أنا ما فاكر صومال لغة إنجليزية إنجليزية ما تقول تجوب هي أنت هتهيدا جنا كلمات كسر كسر قرن كنترول كلمات كسر قرنتا صح ما أنت سو كل سير كريان جرمك قرأ كسر دولة بانكارس therefore الصومالي هرجع معهم ده وتقول وأنا دولة يوحي سبورت كنا لغة تاني بتشوف وحتى كدون وأنا هو بهم دولة أنا الصومال قليل تعالوا نذكر وما وحن برينا مع الصومالي ما غير بينه برينا ما غير بينه برينا ما عارف حن برينا كمبيوتر بينه علم برينا عفوا برينا البنك دولة برينا الصومالي ما يلا وحكي لك حاجات ما أنا نوضع هاي الصومالي ما السودان يا الصومالي لا هو برينا لكن علمنا إنه برينا في الصومالي ما وضعت إنديا لهم صبرتي البشر كقاطين إنديا وهم بين فلوان شعبها وقول كذا سعاش يجي سعار يشرب ودين يسوونه أو أردوي أو local language واحد قبل واحد إيه بالتمام تكنولوجيا العالم إنديا ما عندها صوت أي صوتهم عالم الدولة هو مرين مرين كسر تذكر ألفا China ولا صوت China qofkii tagaadada tahada ka shaqeysa waxa English baa lagu qoraa marka ma aha in aan leenahay wadani malihin uma baahnin malihin hal la dhiirigeliyo hay-adaha jira hay-ad waxa madax u ah maxaa tahay Afrika yiraahdo hay-ad la yiraahdo oo Soomaaliga hay-ada jirta oo dabagala oo horumarinaya alxamdulillah Djibouti oo hadda dowlad Soomaali ahayn muxuu ahaa cumad iyo Ismaaciil oo geelay geesiman iyo dadaal u wadaan jira وهيئته أي دلالة أو أهل لهم من أفصال إذا أفصال أنا سلوك كلام حكي صوتها تشجع جامعة تشجع أفصال أنا كلا قاركون وياك ما أفرحيو على نجارة شقية أنا بقول شقية جيبوتي تشجع قاعد تشجع جامعة أفصال كلا شقية وما دونك أفصال أنا لو كفايس دير كفايس كعب وصلنا وإحنا هاي ساسا أي صوتها وحنكون أصوات وهذا أنا طلبها هاي waxa Soomaaliya oo baahan inaan xoojino isno aan u sallamay laakiin sababta aan u dheekin waxa waqti aan joogo halka dowladda ma waxay baahanaa waa hadda ka hadlayno systemkii aan wasneen waxaan maartay jaamacadii xaad moodan nabad insha Allah waa inta ardayga afso sin marka la bilaabo waxaan u bilaabay in Soomaaliya waxaan soo kadib secondary ku soo gaaray English oo soo gaaray وأنا في عندي في عمري أنا أقول لكم القواعد ده ضوابط ما كده قريب إلا مو بلا إنجليش إليمنتري أنا أقول لكم بلا وأنا صارت كانت سكندري سكول حتى كسر إنجليش هو إيه
إنه ما لنا الصومال إنجليش لكن كتر الإنجليش هو international إنجليش مستمر حتى الإنترنت يشيل أمر إنجليش ما جابانيز ما تشاينيز إنجليش ما جامايكان إنجليش ما نيجيريان إنجليش ما إنديان إنجليش ما صار اللغة المصرية عالمية international إننا جامعة كفالا كتر جامعة عالم نسكت من عالم هذا أول يعني نقول له هو ولا صار لكن تنا يعني كتير أيام بالله مسلم aad iyo aad bay u mahadsan yihiin panelistiga maanta ee noo jeediyey mowduucaas ka hadlay quruxda badan leh waxaan jeclahay in aad looga faa'iidi doono waana duuban yahay oo ciddii ku ceshanaysaa waxaan sidaas lamida u mahad celinayaa meediyaha tabinaysay tooska u tabinaysay iyo akhyaarta kasoo qayb gashay oo dhageysanaysay panelkeennina intaas uu noogu xiran yahay aad iyo aad baa mahadsantihiin